السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta oo Isniina taariikhduna ay tahay 20ka bisha May sanadka 2024 waa tahay marka Allah u naxariistay madaxweynihii Iran qof noocee ah ayuu ahaa imise jir ayuu ahaa sidee ahaa horta nidaamka Iran marka idin sheego awoodda wadanka al-murshid al-a'la iska leh macnaha hogaamiye diimeedka wadanka hogaamiye laakiin arrimaha siyaasadda iyo maamulka iyo waxaasna madaxweynaha iyo dawladdiisa maamula laakiin madaxweynaha iyo dawladdiisu waa inay ogolaanshiyo ka haystaan marka xilka ay qabanayaan al-murshid al-a'la hogaamiye diimeedka sare waa inay maaragtay ogolaansho ka haystaan marka taas waxay ku muujinaysaa aayatullaahiga inuu number 1 ka yahay wadanka laakiin arrimaha idaariga iyo maamulka iyo waxa kan iyana ay maamulayaan madaxweynaha iyo tiimkiisa wasiirada waayahay marka warbixinada marka waxay leeyihiin maanta oo Isniina ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Hussein Amir Abdullahian iyo mas'uuliyiin kale inay la dhacday diyaaradii shalayto halkaana ay ku dhinteen waxaana diyaaradda ay ku burburtay gobolka la yiraahdo Azerbaijan tabari ee ku yaala waqooyi galbeed ee Iran maalintii Axad ahayd haddaba waxaa la sheegayaa madaxweynaha wadanka Iran in da'diisu ay ahayd 63 sano jir waxaana la sheegay inuu siyaasadda muddo ku jiray oo uu ka shaqeynayay Ibrahim Raisi madaxweynaha wadanka Iran waxaa la doortay sanadkii 2021 wuxuuna bedelay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Hassan Rouhani haddaba waxaa la sheegayaa inuu dhowr xilal soo qabtay inta aan madaxweynaha loo dooran waxa uu ka soo shaqeeyay hay-ado dhinaca samafalka ah oo uu markaa iska lahaa Khamenei oo aayatullaahiga uu u xil saaray wuuna ka shaqeeyay sanadkii 2017 ayuu wuxuu la tartamay Hassan Rouhani hase ahaatee waa laga adkaaday doorashadii madaxweynenimada laakiin wuxuu ku guuleystay doorashada tii xigtay ee 2020 Hassan Rouhani madaxweynihii isaga ka horeeyay waay maruu la tartamay waa laga adkaaday marka mar labaadkii uu tartamay wuu raayay marka ninkan la leeyahay Ibrahim Raisi Allah u naxariistay Ibrahim Raisi marka 63 sano jir uu ahaa ninay aad isugu dhow yihiin qolayaha diinta ee wadanka maamula ee shiicada ah ee aayatullaahiga ugu sareeyo ayaday isugu dhawaayeen inta aanu xilka madaxweynaha qabanna wuxuu ka shaqeyn jiray hay-adaha ay qolooyinkan aayatullaahiga iyo maamulaan iyo xilal kale ayuu soo qabtay waayahay marka ninkaasu marka nin laga jecel yahay wadanka ayuu ahaa Ibrahim Raisi hadday tahay ragga diinta iyo shacabka oo doortay intaba waxaa la yiri ninkaas aad looga jeclaa wadanka wuxuuna ahaa nin dabeecadiisu ay wanaagsan tahay waayahay ninka kale la dhintay dabcan ilaa 7 qof ku saarayeen leeyahay marka lagu daro duuliyaashay duuliyihii iyo caawiyihiisii wixii dhan marka la isku daro 7 qof ayaa warar ku leeyihiin laakiin 4 qof oo mas'uuliyiin ah oo waaweyn ayaa saarnaa madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo gudoomiyaha gobolka xariga laga jarayay biixireenka la yiraahdo Azerbaijan tabari gudoomiyahooda uu saarnaa nin wakiilka ah hogaamiye diimeedka aayatullaahi oo imaam ahaana wuu saarnaa oo macnaha qolayaha diinta ee wadanka kor ka maamula ka socday isaguna wuu la socday marka nimanka ruusu marka afarta ayaa ugu muhiimsaneed sida wararku ay sheegayaan haddaba marka ninka la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda
xuseen amiir cabdilahyaan waa nin caynkee ah isagana taariikhdiisa bal xoogaa aan bal fiirino cabdilahyaan isagana wixii laga qoray taariikhdiisa. haddaba telefishinka alcarabiya ayaa wuxuu leeyahay waa kuma cabdilahyaan. haddaba marka waxaan leeyahay cabdilahyaan noloshiisa siyaasadeed waxay ka bilaabatay meel 340 kilomitir u jirta bariga Tahraan. wuxuu ku dhashay halkaas 1964. wuxuu ka soo jeedaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Iiraan Allah u naxariistay qoys fuqara ah ama faqiir ahaa oo aan waxba haysan oo markaa deganaa magaalada la yiraahdo Damqaan. kadib xaaladooda nololeed iyo midda dhaqaale si ay wax uga bedelaan ayaa waxaa la sheegay in markii uu 6 sano jiray wasiirkii arrimaha dibadda Lahyaan in aabihii uu geeriyooday kadibna qoyskiisii inta ka hartay ay go'aansadeen inay u soo guuraan caasimadda Iiraan ee Tahraan si ay bal noloshooda wax uga bedelaan. waxay degeen xaafado dadka fuqarada ah ay ka degan yihiin magaalada Tahraan waxaana ay ku dhowdahay koonfurta airportka la yiraahdo Mahrabad ee caalamiga. haddaba waxaa la sheegayaa markaa kadib in uu bilaabay inuu markaa dadaal iskii ah sameeyo oo uu waxbarto oo uu shaqo badan shaqeeyo maadaama qoys fuqara uu ka soo jeeday. 1991 cabdilahyaan waxa uu qaatay darajadii ugu horeysay jaamacadda ee baccalaureate waxaana la sheegayaa in uu ku qaatay xiriirka caalamiga ah. 1997 waxa uu ka shaqeeyay safaaradda Ciraaq oo markaa uu ka noqday diblomaasiyiintii halkaa ka howlgalayay. waxa uu sidoo kale haystaa darajada masterka ama Manchester. waxa sidoo kale uu qaatay darajada ugu sareysa jaamacadda ee doctora waxaana la sheegay inuu ka qaatay jaamacadda Tahraan. haddaba waxaa la sheegayaa ninkan inuu xilal soo qabtay laftirkiisa. waxaa ka mid ah inuu xil ka qabtay wasaaradda arrimaha dibadda qaybta xogayaha guud ee wasaaradda ayuu soo qabtay arrimaha khaliijka iyo bariga dhexe 2010. haddaba cabdilahyaan ayaa waxaa doortay inuu wasiirka arrimaha dibadda u noqdo madaxweynihii geeriyooday isagana Ibrahim Raisi oo la sheegay inay aad isugu wanaagsanaayeen. markii xilka loo doortay ayuu wuxuu ka dhigay wasiirkiisa arrimaha dibadda sanadkii 2021. waaye marka isaguna halkaas ayaa maaragtay uu ku dhintay wasiirka arrimaha dibadda. waxaa la sheegay inuu ahaa diblomaasi howlkara waa barnaamijyadeeda waa ku arki jirteen. cabdilahyaan waa nin aad maaragtay warbaahinta ugu xirnaa arrintan Gaza iyo booskii uu ka taagnaa waa la yaqaanaa. suu ula dagaalami jiray Israa'iil iyo Maraykan iyo suu wax uga sheegi jiray iyo kulli waa la socotiin. marka nin wuxuu ahaa geesi ah oo aan caadi ahayn. waayahay marka alcumuum marka sheekadu waxay ku soo gabagabowday Allah u naxariisto. qof walbana waa tagayaa meeshaas. maanta qof haddaa tira Allah u naxariisto Allah markii dambe aday kugu imaanaya waxa leeyahay odayga asagana Allah u naxariisto. marka meesha qof sii joogaya ma leh. qof walba marka qaab buu ku tagaya. marka iyaguna diyaaradaas inay la dhacdo ayaa maaragtay sabab u ahayd inay geeriyoodaan. marka Allah u naxariisto ayaa leenahay. marka yaa bedelaya ninkan la leeyahay madaxweynihii Iiraan yaa bedelaya yaa hadda miiska saaran. waxaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenkii ayaa xilka sii haynaya waxaana hawsha kor kala soconaya ayatullaahigii iyo madaxdii baarlamaanka majlisu siyaanati dastuura la yiraahdaa golaha ilaalinta dastuurka nimanka la yiraahdo garsoorkii iyo wixii. laakiin waxaa xilkii maamulka sii haynaya inta madaxweyne kale laga dooranayo oo waqtigii la gaarayo. marka waxaa sii wadaya madaxweyne ku-xigeenkii. haddaba madaxweyne ku-xigeenka hawsha sii qabanaya waa kuma maxaa laga yaqaanaa. haddaba aan idin tuso isaguna wixii laga qoray. waxaa la yiraahdaa Maxamed Makhbar ayaa la yiraahdaa. waxaana la sheegay inuu ahaan jiray taliye sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka. haddana waxaa la sheegayaa
inuu madaxweynaha iiraan uu noqonayo isagoo bedeli doona madaxweynihii dhintay allah u naxariistee. siyaasigan maxamed mukhbar la leeyahay oo madaxweyne ku-xigeenka ah waxa uu dhashay sanadkii 1955 ayuu dhashaa la leeyahay. waa nin ay aad isugu dhow yihiin hogaamiye diineedka waddankaasi cali khamenei. waxa uu ka tirsanaa saraakiisha markaa iyagu caanka ah ee ciidanka ilaalada kacaanka. waxa uu ka qayb galay dagaalkii cuslaa ee dhex maray iiraan iyo ciraaq sanadihii 1980 ilaa 1988. waxa uu sidoo kale soo maamulay qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay qaybta caafimaadka magaaladii uu ku dhashay iyo meelo kale. waa nin maaragtay dhinaca siyaasadda iyo ciidanka iyo wax badan ka soo shaqeeyey oo markaa xilal kala duwan soo qabtay. sanadkii 2021 ayaa xilkii ugu weynaa isaga loo magacaabay oo ah madaxweyne ku-xigeen, waxaana magacaabay madaxweynihii geeriyooday ibraahim ra'iisi. waa tahay marka meesha hal mid ka ogaada, aayatullaahiga weyn cali khamenei aa la yidhahdaa, ninuusan raalli ka ahayn madaxweyne maba noqdaba. marka waxa loogu soo daraa mar walba waa isku fiican yihiin. cali khamenei aayatullaahiga isku fiican yihiin, hogaamiye diimeedka isku fiican yihiin. waxaa loo leeyahay waa saas, hogaamiye diineedka haddaynaan isku fiicnayn shacabka ha ku doortaa sheegtee 3 jibaar ha ku doorteen cid wax kuu dhiibanaysa bale. meeshaan waxa waaye nimankaas wadaadada haysta iiraan. marka qoladan kale ee lasoo doorto maamulka iyo waxa kan iyo waxa waaye maamulka iyo shaqadii iyo wixii iyo ay wadayaan, laakiin go'aamada ugu waaweyn ee waddanka loo gaarayo aayatullaahiga ka mas-uula. marka ninkaasa hadda hawshaa sii wadi doona ayaa la leeyahay. waayahay marka waxay wararay kusoo kordha waa arki doonaa. ruushka iyagu waxay sheegeen inay caawimaad buuxda ka samayn doonaan arrinta ku saabsan sida ay wax u dhaceen. baaritaanka diyaaradda burburkeeda ma laga dambeeyey, ma iyada iskeeda u dhacday. laakiin hadda waxaa leeyahay wararka ku saabsan in macallinka weyn iyo xertiisa iyo israa'iil iyo ay ku lug leeyihiin ma xoog badna. diyaaradda waxaa la sheegay diyaarad iska qadiima inay ahayd, waayadii dambaba isbeerbaartigeeda iyo waxeeda iiraana samayn jirtay. marka diyaaradda oo duqa, cimiladii oo xun, wixii oo dhan oo isku dardarsoomay ayaa waxaa la sheegayaa inay sabab u noqon karto 80%. marka nisbada warka ku saabsan in amaa laga dambeeyey way yartaa la leeyahay, ma xoog badna marka loo fiiriyo jawiga sida uu yahay oo diyaaraddu ay ku burburi kartay iyo diyaaradda laftirkeeda inay diyaarad iska waayeela ahayd oo weyn ay ahayd. marka hawsha halkaasaan kaga gudbaynaa. intii dhimatay allaha u naxariisto. wixii warara ee soo kordha ee sheekooyinkan ku saabsanna barnaamijyadeeda dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. qaybta marka ugu dambaysa barnaamijka waxaan kusoo gabagabaynayaa sheeko cajiiba oo dhacday shalay intaanu ku mashquulsanayn sheekada ku saabsan diyaaraddan iyo madaxweynaha la la-yahay intaan ku mashquulsanayn ayaa sheekooyin cajiiba ka dhaceen Gaza. haddaba marka maxaa ka dhacay Gaza? Gaza waxaa ka dhacay dagaalo culus. Rafax ha u badnaato, Jabaaliya dhankeedana way ka dhaceen. haddaba mid ka mid ah video cajiiba oo ay soo dhigeen nimanka la yiraahdo Kataibul Qassam ayaa waxaan idin dhigay qaybta fariimaha commentiska ayaan linkigiisa idin soo dhigay. videoga marka waa 2 qaybood. askar Israa'iiliyiina oo wata ayaa waxay soo galayaan meel xaafada. xaafadaha waa rakiban yihiin, kaamirooyina ku jira, meena ku jirta, wax kasta ku jira. nimankii ayagii macaaliyahoodii nagta laga gelinaya. banaanka taangiya u yaalay. taangiyadii markii kuwii gudaha lagu cunay lagu qaramsaday ayaa waxay bilaabeen inay istoosiyaan oo meeshii wax ka dhaceen iyo wixii iyo ay sameeyaan, qaarna inay carraan oo dib u carraan isku dayeen. laakiin marka howlgalka halkaa ka dhacayo iyaguna alyaasiinku uu la joogaaba. ciyaalkii alyaasiinka watay dhinacyada inta ka yimaadeen ay taangiyadii ku dhalaalinayaan. marka
sheekadaasu marka sheeko la yaab la waaye waxaa ugu tegi doontaan qaybta commentiska marka aljazeera warbixin ay ka qortay videogaas cajiibka ayaan kaarkan idinkugu soo gudbinayaa alqasaam waxay baahisay video ay leedahay waxaan bartilmaameedsanay ciidamo israa'iiliyiin ah oo lugaynaya gudaha guri waxaana u samaynay inaan miino ku xirno miinadaas waxaa leedahay miinada dadka waxayna sheegeen inay halkaa ku dileen 6 ka tirsan ciidanka waxayna sheekadaasu ka dhacday xaafadda la yiraahdo at-tanuur ee ku taala bariga rafax waa meelihii maalmahan dagaalada dhanka rafax ay ka socdeen marka shalay ziyaaradaas dhacday inta aan madaxweynahan raadinaynay Allah u naxariiste haddaba marka wixii warar ka soo kordha Gaza barnaamijyadeeda dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa inta aan markale kulmayno barnaamijka la gareeyo share gareeya nabadgelyo